munaasabadan oo lagu daahfuriyay waxbarashada heerka labaad ee master degree-ga oo ay iska kaashanayaan jaamacadda Somafel iyo jaamacadda United International University ee wadanka Bangladesh oo ay ka soo qayb galeen xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay jaamacadda United International University ee ku taala wadanka Bangladesh maamulka jaamacadda Somafel iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho labada jaamacadood oo kala ah jaamacadda Somafel University iyo jaamacadda United International University ee wadanka Bangladesh ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis labada jaamacadood oo ah dhinaca waxbarashada waxayna fursad weyn u tahay arintani ardayda Soomaaliyeed ee aan awoodin inay waxbarashada heerka labaad ay ku soo diyaariyaan wadamada kale iyagoo fursad ugu heli kara ayagoo jooga wadankooda hooyo ay ku diyaariyaan master degree-ga madaxa maamulka maaliyadda jaamacadda United International University ee wadankaasi Bangladesh mudane Faaruq Maahi Khawza Ahmed iyo Geneva Hussein ayaa si wada jir ah uga hadlay muhiimadda waxbarashada heerka labaad ee master degree-ga valuable time and giving us the company. We are very delighted and we would like to invite you to visit Bangladesh very soon. We are welcoming to you. Lastly and finally, I thank you all that you have come up and take your time, and we feel so honored by your presence. Students, and this is not a commercial university. We believe in quality, we believe in hospitality, and we want to see ourselves working together. xildhibaan Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan iyo xildhibaan Sahro Umar Maalin oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay waxbarashada heerka labaad ee master degree-ga Bangladesh oo kale waxa la sameeyay trade ama dhaqaale oo ay gaarsiin karto heer sare oo koob ka sii geli karto skills-kooda ka faa'iideysan karna tacliintooda dowladooda ka faa'iideysan karna discipline-kooda ka faa'iideysan karna waxaan rabaa inaan aad u xusuusiyo doorka u dambeeyay haddeer injineerka ka badan ka bixin marka aad iyo aad u faraxsanahay gudoomiyaha jaamacadda Somafel Dr. Cabdinuur Sheekh Axmed ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay ardayda Soomaaliyeed marka waxaan noo bilaaban intaan jaamacadda dibadda ayaan marka ugu horeysa inaan anagu dhexdeena inaan kala gudaanayso hawshaasi waa bilaaban tahay waxaan rajaynaynaa inaan iyadana sii ballaarin Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho